daawad ninka yar ee halkan hoose ka muuqda TikTok waxa ugu qoran Musab shalay toole ayuunbuu ka soo degay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport magaalada Hargeysa yimid Muqdisho inuu ka yimid waa reer Soomaaliya isla xalayna intuu mas'alaha tagay ayuu isku soo sawirayay baaskoolad isagoo kolba la soo baxayo sidoo kale waxa uu isku soo sawiray oo inuu aragnaayo hayna kiibiyo isagoo gaari saaran oo qorina sita oo salagyada hormaraya wadinkaas markaa waan la soo diro duulaana waxana waxa dhalay waa xukuumadda kulmiye xukuumadda wadani intii xukuumadda wadani dalka qabsatay ilaa bishii November ilaa maalinka maanta ayuu horta isku furan kan iyo mushkiladan iyo dhibaatadan ay dhacday awal hore dadka weynoo kala soconaydo wax isku ma keen jirin oo sameynay ma jirin laakiin inta mid maxaa yariyada raalli ka iyadana soo dhaweysa xukuumadda soo dhaweysa wafdi u dirta xataa iyo qaar soo dhaweeyay bad ku soo dhaweeya oo raalli ka oo jecel oo rabta markaas ninka ay runtii ma waa la xidhiibay leeyahay boolisku wuu xidhay laakiin waxa su'aashiis weydiintii waxa weeyaan baskooladan iyo qorigan Hargeysa loogu dhex dhiibay mise wuu sitay marka horeba waa mushkiladu halka iyo muhiimadu waa su'aashu possible-ka ama suuragalkii in la isweydiiyo question balka waxa weeyaan xaqu ka keenay hubkan soo sawiraya marka wax la yaab leh dalkeenu waxa moodaa inuu isku furan xubba inaga iyo maxamar dhex socda xukuumadana mas'uulka xukuumadda dubha isugu noqoto